aad ayaan dii salaamay dhammaanba ku xidhnayaasha ku xidhan barnaamijka Masaamax Kariim. haddaba qisadan maanta idii hayaa waxay tahay waa inan iyo aftigii khilaaf dhex maray. waana dareemi kartaan cilaaqaadka ka dhexeeya wiil iyo aftigii inay tahay mid family. waxaan isku dayi doonaa bal inaan arrinka aan islaaxino. horta intaanan sheekada iyo qisadu say tahay inaan ogaan waxaanu yeeri doonaa Maxamed Ramadaan Abu Zayd oo yarka arrinka wata. أهلا وسهلا محمد. ما شاء الله وفي عنها يورا ساتهنا إيه فريسو محمد بركة سو جلسي ما تفرح سنين سيو حجران وايو ما يدبقني سينا والله أفتيجي مشكلة وين بنا كلا رحت على مشكلة أنا دي شيء قدورة محمد ننكو حرن والدكي أفتيجي بنك وضع أيوها أفتيجنا وما جيس اللي راد مصطفى عبد الفتاح ويران سلا سور بايدي أم بسو كوري cilaaqaadkooguna aad buu u wanaagsanaa. haddaba aftigu xaas ayuu lahaa. dabcan maxamedna xaas buu lahaa. haddaba aftigu markuu furay xaaskiisii wuxuu la soo degay wiilku aftigu yahay maxamed. xiriirkooguna aad buu u wanaagsanaa iyo cilaaqaadkooguba waana isjeclaayeen. maxamed xaaskiisu aftigii aad umay jecleen. mayse jecleen aftigii maxamed inuu la noolaado amba guriga lasii degnaado. way isku dayday inay isku dirto oo maxamed ay ku dirto, laakiin maxamed nin aftigii jeclaa buu ahaa. ugu dambayntii ilaa heer ay gaadhay ee ku tiri maxamed aftigaa waabay qashqashaadaa. runtii maxamed muu rumaysan arrinka, laakiin aftigii ayuu tegey oo way wada hadleen. aftigii buu ku tuhmay inuu qashqashaado xaaskiisa. hooyadaa ma nooshahay? maya way dhimatay. way dhimatay. isaga ayaa beddelkeedii soo koriyey. aabahana isna uu dhintay. isna uu dhintay. intii aan khilaafku dhicin bay dhintay. waan gartay. haddaba waanu dirnay anagu fariintii aftiga balaneega inuu ogolaaday inuu yimaado stuudiyahan. haye mudane. qisadan maanta idii hayaa saad u aragteenba waddanka Masar ayay ka dhacday. saan markii horeba idii soo sheegay waxaana la jooga maxamed oo halkan stuudiya yimid isagoo doonaya inuu raali geliyo aftigii. halkanna wuxuu yimid heshiin aftigii Mustafa markii uu ka saaray guriga oo weliba uu gacan ku saaray aftigii siduu isagu inoo sheegay. laanno xaaska maxamed xaaskiisa ayaa ku dirtay aftigiina iyagu la deganaa inay ka dhaadhicisay odageeda sidii xaaskiisu sheegtay inuu aftigii uu ku soo xadgudbay. arrinkaasna run muu ahayn. kadib markuu ogaadayna wuxuu yimid stuudiyahan siduu aftigii u raaligeliyey marka una sheego wixii dhacay inay khalad ahaayeen una raali noqdo. haddaba isagii stuudiyo ku jiraa. haddaba hala soo gudbiyo Mustafa. أهلا وسهلا مصطفى وكو سلام يورم iga waran caafimaadkaaga ii fadhiis horta ii fadhiis. wallahi ma sha Allah waa fiicanahay. waan kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad u aqbashay fariintan. ilaahay ku daayo. waa soo fiican. kaaga mahad celinayaa mar labaad. ehelkii iyo qaraabadiina ka waran iyo eheladiiba aad waxaas ka furtay. miyaad leedahay ubad? saddex baan leeyahay. oo maadi kula joogaan mise hooyadooda? maya hooyadooda bay la joogaan. oo waa mise jirna? midna waa 18 jir, midna waa 20 jir, midna waa 19 jir. ma sha Allah. oo miyaad aragtaa adigu markaa? waan arkaa. way kala degan yihiin soo maha? alxamdulilah. hadda shaqaduna ka waran? alxamdulilah. marka hore waan kaaga mahad celinayaa maashaad fidda stuudiyaha. ilaahay ku daayo. saad og tahayba barnaamijkan waxaa la yidhahdaa Almasaamax Kariim. habqaadkiisuna waxa weeye waa anigoo qof iga dalbado inaan u yeedho qof kale dhexdhexaadiyana sidaadoo kaleba, laakiin qof adiga ku ciseeyaa jira oo jeclaystay inuu adiga kula hadlo raban inuu kula heshiiyo. waa kee shakhsigaasi? waa ka taan doonayaa. ma garanaysaa ciduu yahay? waa kuma? shaashadda eeg marka hore. الله waxaa keenay kan meesha yaa keenay de imaqal Mustafa frisorta yaa keenay
ما دوني معاك إنه كوكا يفري صورته هي كريا كنا ماشي وين دونورته يفري مايا ما فينا زاني مايا يسوق حلقة ما تشوفه حدو أنا كري دوني وأنا هورتا إذا صور بحا ثاني جاي مقل يفري صح يا إيك أنا كان ماشي ياك هرت فريسو مايا يسوق حلقة ما تشوفه يسوق هذا الموضوع كان إنه يهري ما بس تشوف والله أنا مادين لكن أدو أنا قاعد تيمت والله هذا الموضوع كان إنه ماشي تشوف كمان مادين وذوقت هذا أنا جاوبي أيضا تيمت سمعها هذا جاوب أنا يمد أوكي هذا ويفري ثاني جاوبي تيمت كان لكن وجهي سفر وين أنا أركو مصطفى هذا ويفري وهايو كان حد يقول كيسان مايا أنا قمنا نكينين كان أنا قمنا نكينين حلقا لكن أنا كفولا هيك صور استاغ سوق بالوكاسي لكن سوق حكم حدودي هاي بلا هي صور استاغ أنيقا laakiin soo baqaya inuu soo istaago adiga isagu fariin ayuu ku soo diray ma maqlaysaa waan maqlaya ha wuxuu ku leeyahay fariinta ku qoran aftigayga qaaliga ahaayo si yiraahdeenba aftigu waa waalid aniguna waxaan ahay shakhsiga keliya ee garanaya ereygan waalidnimo iyo wanaagga leedahayba waad soo korisay oo waxbaad soo bartay in badanna adoo i baqanaya waad soo ilaalisay markii aan weynaaday abti kelinimo iguma adeen abtiyo garabkayga taagneed markii aan guursadayna garabkayga taagneed oo cidlayga ama dhaqaaqin intaasoo dhan kadib waxaasuu ku sheekeynay hadda abti qaali shaytaan ayaa iindha tiray oo igu kalifay inaan rumaysto waxaanan jirin anigu waxaan ogahay waxyaalahaas iyo wax u dhowba inaanad adigu abti aan samayn karin mar afti baad ii tahay mar aabbahay baad tahay mar walaalkayga weyn baad tahay haddii aan inta noolahay in leeg aan ku raali geliyana muxuu doonaya marka inaan ugu jawaabo abti weliba abti qaali waxaan ogahay inaan ahay qof khaldan oo adiga khalad weyn kaa galay laakiin naftaydu waxay amraysaa aniga inaan adiga ku raali geliyo abti qaali si aan mar kale aan iskugu soo noqono abti qaali maya ani tani ma anfacayso mustarjoljiyo oo rabaayadii quruxda badneed aad soo rabaayidaysay aad iga dhex aragto maya kan aniga anfici maayo abtigaygii mustafow wax adduunyada joogo ilowsin karaa khaladka adiga kaa galay abti ma jiro laakiin abti anigu waxaan doonayaa madaxaagii lagu hagayna dhunkado dhammaan caalamka hortooda waxaan kuu sheegay inaan anigu weliba aan cashar ku qaatay aad baan ugu qoomameeyay abti qaali maya anu kan ma saamaxayo wuxuu igu sameeyay anu ku saamixi maayo kan maya ma fiicna saas waaye bal ii fadhiis horta ani iyo adiba wada hadlaynaa intu kan meesha jooga wada hadli mayno yaa abu cabdifataax anigaad martideeda tahay anu kan dooni mayna arko sira deji wax adiga ku dhibayaa ma jirto waxaad arkaysaa anu xanuunsanaya sokor baan leeyahay oo kuu sheegay anu xanuunsanaya sokor baan leeyahay waan xanuunsanaya weliba kan baad hor keenaysaa maqlaya xaaskiisa warkeeda ninka naag hadalkeeda maqla weligaa nin ma noqdo adiga intay kugu dambaysay aragtida nin naagta ma socdaa nin maaha ninku wayna go'aankiisii taladiisa yeesha maqal inagaa wada hadlaya weligii nin noqon maayo waxbaan ku odhanayaa horta wiilkan dhallinyarada xaqiiqadii ayuu ogaaday waxaanu ogaaday inay xaaskiisu ay ka dambaysay arrinkan oo dhan waxaanay u sheegtay wixii adiga ay kaa sheegtay inaanu run ahayn xaqiiqadii ayuu ogaaday markaa waanu ka qoomameeyey arrinkaa wuu furay horta waaye yara maqal xoogaa daa in yara kula hadlee wuu furay baan ku yidhi wuu furay u deeriyey waxaanu u soo xiisooday abtigii bal in yaran yaradayna isagu bal wuxuu kula hadlay aan aragno maxamed la hadal abtigaa waanu ku maqlayaa haye tafadal wallaahi abti waa kugu khaldamay gef weyn baanaan kaa galay ma ahayn inaan hadalkeeda maqla abti waanan ka qoomamaynaya inaan sidaa sameeye abti waxaana igu tidhi 1 iyo 2 maaha abtigaa mar walba wii khaawusaa waxaan isku dayey inuu xataa iyo xoogaba igu tiri abti aniguna shaqan ka yimid oo waan daalana markay hadallada abti igu lahayd abti intaan kugu qayliyey ayaan ku yidhi maxaad saa u samaysay abti aniga xaq weyn baad igu leedahay waana ku khaldamay taas lugahaaga ayaan dhuganaya abti caalamkao dhan ay daawanaya xaq baanad igu leedahay abti xitaa abti haddaad doonayso wejiga kabiga la dhac abti anigu waan furay naagtii ama naag baa ku wadda adiga markaa abti waan khaldamay abti iska deeriyey masaasan kugu soo koriyey oo weliba ninkaaga dhigay adiga waryaa inaad naag hadalkeeda maqasha ma waajiba leeda tarbiyadeedii wanaagsaneed gurigaygii baan u iibiyey saan adigu ku guuriyo waan garanayaa waan ogay abti taas garabkaygaad soo sidee u dhacday maxaad saa ay kula dhaqantay aduu og aniga inaan sokor qabo aniga hortayda soo istaag horta haddaad nin tahay bal hortayda soo istaag aniga xalaali waxaad iga codsato diyaar baan ahay mar dambana khaladkaas abti samayn maayo bal haddaad nin tahay soo istaag aniga
wuu sheegay isagu wuxuu yidhi in badan baan isku dayey inuu ku yimaado adiga laakiin adigaa diiday adigaan rabin inaad aragto wuu sheegay isagu wuxuu yidhi in badan baan isku dayey inuu wejigiisa laga gube waan khaldamay abti macaaniga raalaho barnaamijkan inuu yimaado barnaamijkan oo ah almusaamax kariim ninkanna wuxuu yimid inuu kugu raali geliyay bartan ninkan uu kuu xiisay horta wejigiisaan arko hore hay laakiin haddaad wejigiisa aragto maxaad arko wejigiisa horta anna waan ogolahay mudana georgio waxaan doonayaa inaan la hadlo haddaan isaga ku tusno masaamaxaysa adigu markaa diyaar moo tahay inaad saamaxdo aan arko marka hore wejigiisa saamaxaadda allah haya laakiin wejigiisaan arko wuxuu igu sameeyeen tusi doonaa xaq baad igu leedahay abtiyo abti buu ku leeyahay bal maqal haddii aan wejigiisa ku tusno miyaad dilaysaa maya saas ma fiicna georgio wuxuu igu sameeyey ninkani waan ognahay waa khalday ma fiicna hadduu nin yahay wejigiisaan raba inaan arko xaq baad igu leedahay abti madaxaygan lugahaaga saaranaya abtiyo maad maqlin wuxuu ku leeyahay lugahaaga maya waa anfacay locaas hay mustafa waxaan doonaya in toos u arka doonaya anugu wax kala dooni maayo hay abtiyo diyaar baan u hay wax doonta igu samee aniga haddaba gidaar ka fura haddaba isiradaji xoogaa wallaahi ma fiicna wuxuu igu sameeyey ninkan yari wallaahi ma fiicna wuxuu igula dhaqmay ninkan yari ninka naagiisoo maqlay aniga nin aftigii aftigii gacanta ugu qaaday haddana aduu kuu soo hoyday hadday gabadhi kugu tiraado abtigaa igu soo xadgudbay adigu waxaad samayn lahayd waa kan isagii madaxaan kaa dhukanaya abtiyo ey baa tahay kala baa tahay hay abtiyo waa ey baa tahay kala badii iga fogow warya iga fogow iga fog gactiga qad war gactiga qad eeyow kalabi gactiga qad iga qad gacta warya abtiyo xaq baad igu leedahay waxa doonta igu samee gactiga qad kalabiyo abtiyo dil haddaad doonto madaxa iga qaraac diyaar baan u hay abtiyo alla abtiyaa dhacay alla abtiyo abti waa khaldamay abti waa khaldamay alla caawiya abtigay alla abti macaan loo caawiyo alla abti macaan wallaahi iga raallihow oo markaa macaankaaga masaas u dhacaana oo kaniin miyaad wada inaad cunto wallaahi iga raallihow khalad alxamdulilah kaabaan kaa raaligelinayaa haddaan moodaya in sidan idhacayso xaaladdan kumaan geliyeen alxamdulilah kale oo kan idhiibka idhiib maya ii fadhiiso horta isiradaji xoogaa miskiinka yarday uu ku yimid madaxuu kaa dhunkaday gacan baad saartay waxa doontaad ku samaysay wuxuu igu sameeyey mudana georgio kugu sameeyna khalad ahayd maad arkeen siduu kula macaamiloonaya iminka wallaahi annagaba argagax ayaad nagu beerteen teeda kale dadka ha wada daawanay dhan argagax ayaa wada qabsaday waan kuu baqnay adiga xaaladaadii nolosha dhanba waa xadhig laakiin ninkan wuxuu igu sameeyey wax loo dul qaadan kara meeheen ha laakiin raaligelin buu bixiyey wuu kuu yimid inuu ku raaligeliyo barta inuu yimidnaa isagoo dhibkaa igu sameeyey gurigiisa ku faraxsanay anna muddooyin baan la xanuunsanayay arrinkaa anuu guri keligaa jooga isweydiinaya inankaad aftigu tahay muxuu gacanta kuugu saaray wax kaloo dhibaataa uu kuu geystaa jiraa wax walba igu sameeyey maxaa ka xuntaa walaashay markay dhimatay guri bayna kaga tagtay aniga isaga kadibna wuxuu yidhi abti waxaan doonaya inaan guursado waanuu guuriyey alaabta guriga taalay waan haddana iibiyey saan ugu dhammaystiro guurkiisa haddana waan wada joognay oo taasoo aan igu sameeyey siradaji adigu xoogaa wax yar siradaji ma fiicna ninkani siradaji bes siradaji wixii dhacenba way dhaceen iminka halkan baanu yimid wixii dhaceenna way dhaceen waanu ku raaligeliyey go'aankeedana ada iskale masaamaxaysaa iminka haayo maya ma soo ceshanaysaa inanka abtiga waad maya anu kama saamixi karo wuxuu igu sameeyey oo markaa inaad keligaa noolaataa doonaysa adigu miyaa wuxuu igu sameeyey wax loo dulqaato aheen saasana anugu martaac ku hay ma doonaysa inaad aragto mar kale ma doonay inaan arko bes ana xaggayga uu ka dhintay wuxuu igu sameeyey aniga dooni mayna mar kale inaan ma garanaysa ayaan kaa cadhaysino oo sidii markii oo kale aad u dhacdo waxaan ku dhahaa aniga maxamedow haddii aad wax odhan karso abtiga dheh anigu waan la hadlay mudane haddaan anugu iminka la hadlo ama haddana sokorta dib u dhacdaa haddana barti ka bilaabaa way dhaceen anna waan ogahay nin badan ku khaldamay abtigay waana raali gelinaya dhammaanba dadkaasoo dhan ay wada daawanaya hortooda xaq baan adigu leedahay abtiyo
madaxaanan ku saaranaya waadii abtiyo bahdishay waadii bahdishay baan ku yidhi wariye dadkayban indhaha siin kari waayey waxaad igu samaysay naag baad xaq baad igu maqlashay leedahay wariye abtiyo xaq baad igu leedahay naag baad maqlaysaa waan furay abtiyo waan furay maxaa kalon ku samayn karaa miyaan dila abtiyo ayaad naag uska ka guursatay wariye waan furay abtiyo waan baad furay aniga igu wareerisay abti aan guursado ma tan baad ii keentay markaa igaraalow abtiyo xaq baad igu leedahay abtiyo yaa abu cabdifataax adigu inankan adaa soo koriyey saan uu dhaqmay saan u rabaydey ma bes waxba isxanaajin isira deji abtiyo xaq baad igu leedahay madaxaan ku saaranaya abtiyo wax alaali waxaad doonta igu samey abti diyaar baan u ahay waan ka qoomamaynaya abtiyo waxaan sameeyey qoomamo maxaad ka qoomamaynaysaana xagee ad ii qoomama joogtaa weli waa ka qoomamayaad leedahay waxaad anigu samaysayna waad og tahay abti haddaad Isira doonaysa kaale deji, markale isira deji kurkaba iga horta. go haddaad doonto abti la edeb baa tahay ma fiicna waxaad samaynaysaa wariyaa horta hayiman buu ku yidhi hawaaga ma wariye orda bartaadi fadhiiso dooni mayna mar labaad inuu cadhoodo eeg hooyada ilaah u xaq baad naxariistay igu leedahay abtiyo waxay Xaq igula baad igu leedahay dardaamisay abtiyo. maxamed eeg xaq maxamed baad eeg igu leedahay abtiyo ficlaan laheeda ina aragta maxamed eeg waxaan ku igu yidhi samaynayo maxamed wuu khaldamay khaladna waa ka dhacay maxamed wuu khaldamay khalad baa ka abti dhacay igu samee wix alaali waxaad doonto abti igaraalow abti xaq baad igu leedahay abtiyo mudana joorjo kan araggiisa iga qari dooni ma inaa arke hadda dooni maysa inaad aragto ma rabo dhib baan ma rabo anuu ka kan tahay miyaa adun baa igu yidhi gidaarka naga hor qaad anina arkaan doonayaa waa adiga arkay imika inuu ila dagaaltamaan doonaya abti igaraalahow inuu ila dagaaltamaan doonaya waad cayday wax doontaad ku samaysay weliba malaayiinka dadoo daawanaya hortiisa waa dishay wuuna kaa aamusay waana kuu khaldamay kuleeyahy weliba abti saas ma kula fiicnaad joorjiyow anu waxaan ogahay waxa uu sameeyey inay khalad ahaayeen oo weliba waxaan ogahay inaad weliba cafin doonto adigu haddii agtaada uu naxariis ku leeyahay hay ilaahay saamaxo maxaa tidhi ilaahayna Adigana. saamaxo anugu ilaahay ma iidin ma saamixi karee miyaad saamixin adigu laakiin dee ilaahay waxbuu cafiyaa abti Adiga saamax laakiin abti markaa abti oo kuu khaldamay ilaahay saamax baa yidhi iscafiya Anuu anaa saamaxay. iscafiye miyaanu ilaahay odhan adigu miyaad awoodina saamaxdo qof weynna waa tahay waanaad ka sii weynaan doontaa haddaad waan saamaxdana. saamaxay mudana joorjiyow waad saamaxday soba adiga ogaa waan saamaxay والمسامح كريم والمسامح كريم هيا هالضبا انا بحسب لك ابني واحد طبعا انا بحسب لك ابني في المسدس معلش انا بحسب لك ابني قول له انا بحسب لك ابني في النص خلاص خلاص شكرا لك يا سيدي